Soomaaliyada sharafta leh Ilaahay khayr asiyo waanu duceynaynaa gabdhaha Soomaaliyeed intaan arkayna gabar ka qiimo badan ma aan arkin fiidiyowga waan gadgadiyay la sheegayo waa daawaday waa fiiriyay waxa ka waayay wax ceebe magaraysa wax ceebe ama cawradeeda ama jirkeeda ama magaraysa lagu caayo ama la dhaho fadeexay sameysay ma arko hal arin dadku dhex socdeen la wareegayo aniga ugaas ka soo afjarro jirto ninba qabay iyo ninba nin kale aadiye hore noocaas horta xaqiiqdu sida ma dhagahaygan ku maqlaan ku dhageystay gabar markaad guursanaysid ee aroosatid waxa weeye waa in gabadha saddex dalaaq waa lagu meerinayaa saddex dhibcood baa lagu siinayaa saddex dalaaqood hadday dalaaqdu ka dhamaato gabadha waa gabar madax banaan wiilka doontay guursan ninkay doontay aroosi waa naag madax banaan weey waxaan codkayga ku dhageystay oo aan dhagahayga ku maqlay ninka ooyayo ee gabadha macnaha la rabo in magaca looga dilo oo waxaan maqlay dhahayo sanadkii horena labaan ku furay sanadkanna laba hal baan ku furay soo sanadkii hore laba haduu ku furay oo sanadkanna uu hal ku furay de waa gabar madax banaan oo garoobo ninkay doontay guursan ninkay doonto ayay shukaasan ninkay doontay inay guursanayso waa xor weey taa anigu ceeb uma arag taa markii laga tago horta gabadha Soomaaliyeed rag bay u joogtaa qabiilna malaha reerna malaha aniga tayla dhalatay baad adiga guursanaysaa taadi kula dhalatay baan aniga guursanaya ta aad dhashay buu saaxiibka guursanaya ama ninaad garanaynin oo hadda aqoon u lahayn ama qabiilada dacaysid ba gabadhaada guursan doono ma garanaysaa walaashaba nin kale guursan doono dadka Soomaaliyeed gabdhaha iska taabtaan gabdhahana isku bursadaan haddaad cabsi badan qabteen qaar badan oo waxaan arkay duqbilow bajaaris nagu helay wacayn doona waxaan buu nagu sameyn doona warmay waxaan dadkan waa dad wada xidide dadkan waa dad wada ehele dadkan waa dad Soomaaliyeed gabdhahan waa anagina la dhasheen gabadha Soomaaliyeedna ilaa ay xalay tasawiradeeda iyo fiidiyowgeeda la wareejinay anigu wax ceebe kuma arkin wax ceebe haba yaraatee xataa luqunteeda ha noqotee maana ku arkin waxa weey gabar Soomaaliyeed ni shukaasanaysay ninkii shukaasamayay ba khaldan war halka markay taagato halka marayso oo gabadhaas waxa la yiri magaceedu waxa la yiraahdaa nasteexo gaashaan la nasteexo ma sha Allah ilaadeer waliga ay Allah cadawgaaga ha u liicin talaan ku siiraya dhag jalaq ha u siinin macnaha wixii laga rabay laga sameeyo iyo qoladii ku tashatay iyo dadkii rabeen inay suuqa ama magac xun ku sameeyaan ama damage ee gaarsiiyaan reerkiina ama familkiina rabeen inay gaarsiiyaan ma gaarish wax ceeb ka saliim bato wax ceebe oo haba yaraatee fiidiyowada aan aragnay ku jiro ama ka muuqdo ma jirto ta waxa soo hartay uu ninka is-ooysiinaya ma qaana qabiilkiisa aqoon u malihi ee meelahan uu ordayo ee uu gabadhan Soomaaliyeed ee yar ee quruxda badan uu rabo inuu ku ceebeysto uu leeyahay naag baa layga nacay ama naag baa layga dhacay ama naag baa nin iga qaato leeyahay horta waa jaahil kaana naag damba sii heesan doono uma maleynay waa ninka Malaysia jooga Cabdifatax leeyahay sababtoo ah xataa haddii naagta laga dhacay oo sida magaraysaa laga farsameeyo tol baa jiro ehel baa jiro arxam baa jiro dadku xeertay leeyihiin xeerta guurtay leeyihiin familkii baa lagu noqdaa dadkii baa lagu noqdaa gabadha aab bay leedahay walaal bay leedahay ehel bay leedahay waa loo tagaa waa loo gardhigtaa tii loo gardhigto oo la yiraahdo gabadhii ay idinka guursaday waa sidan ninka ragga ah ee laandheeraha ah ee wax gudo waxna galo sidaas u sameeya ma aha inaad Facebook timaadid duqbilow lagaala boqo annagu aan meelahan ororodno oo ku aragnaado ilinka deeyso labada ilmood ku ninka ragga ma ooyo waa ceeb weey gabadha walaasha dad baa kugu sharfay ku siiyay mas'uul bay kaaga dhigay waxa weeye ilaahay ka sokow aabihii iyo hooyadii iyo walaalkii ay la soo kortay ee inta la nooleed ee beed soo kornayba mas'uuliyad buu dhabarka ka saaray isfahmi weyseen wasqaban weyseen reerkii baa lagu celiyaa sharaf lagu celiyaa gabadhiini waan isfahmeenay ama dib kala jireen noo kala garqaada noo xalin Facebook cidna ku xalin meesha kuna garqaadi meesha adiguna waxaan ku leeyahay shame on you gabadha Soomaaliyeed ma sha Allah walaasha maanta kulli fiidiyowga uu ku soo gaari doona waxba yaan niyada laga dilin waxyaanay qalbi laga jibinin
waxba yaanan been lagu sheegin waxba yaanan isku dayin in stress iyo frustration ay ku geliyaan videoyada ay soo geliyeen Facebook ama meelahan ordayo boqolaal baa ayagoo madaxa u qaawan yahay adigu wax bareefad ku ahaaba qof ku khaldan boqolaal baa ayagoo oo madaxa u qaawan yahay oon arkayna meelaha uu Ramadaan weeyaan ay bahladooda burburay isaga yimaadaan aan arkaynaan indhaha daawanaan oo acuudu billah oo rabtaa waliba qaarkood inay wax noo sheegaan ama siyaasad nagala hadlaan ama ay tiraahdo waxaan baanahay yaan aragnaa bagaraysa ma sha Allah salaam dirgiis marka walaashay macaanto soonkaaga wado bagaraysa salaadaada tuko cadowgaaga uu soo koomiyaa wax yar oo kooban oo soo koobmo ayuu noqonayaa qofka guulaysan doono ee mar walba guushu ay raaci doonto haday isku dayeen ayagoo group ama maseer excuse ma noqon doono waa gali doonaan qarax qutay aad dhigeysto excuse ma noqon doono ma garanaysaa maseer iyo waa la socdiye ma waxa weeye insha Allah haduu Ilaahay yiraahdo indhahaagay ka muuqatay aragaagay ka muuqatay inaadan ahayn qof u socday xumaan iyo wax xun u socday inaadan ahayn videoyada kuwa cadowga ay soo dhigeen ay isku dayeen inay kugu ceebeeyaan yaa laga dareemayo ma sha Allah guulaysan ku leeyahay waliga niyadaada haysa jabin waxaan la hadlayaa marka inta aanan qarax quuto ana aadin ragga ilaa iyo maanta fiiri gobonnimadan annaga u hadlayna fiiri gobonnimada uu duqbilow u hadlayo iyo sida wanaagsan uu duqbilow u hadlayo bal dhagahaaga u furo qalbigaaga u furo walwal iyo cabsiba ilaa shaaka ku heysay oo wareegaysay duqbilow baa soo qoray duqbilow baa qayl quuto soo qarax quuto soo qoray gabadhi buu kaal raba war gabdhahan waa dhiiganaga iyo dheecaankanaga weyn waa ehelkanaga weyn waa taan qabnay waa tii wax noo dhashay waa taan guursanay waa taan aan dhalnay waa taan nadashay nagu hareeraysan weey dhageyso ceeb iyo cay uma qurno laakiin saaka waan idin daawanayay idin arkayay dhawaaq iyo cabsiba idinka baxay anoonan shuqul iyo shaqo iyo arrintan ku lahayn halka marka kaga tago walaashay macaanta nasteexo dhul uma dhacaysid baan ku yiri waxan iyo hawshan iyo waxan iyo barbagandadan ay wadaan wallahi baadan dhul saacadna ugu dhacayn adoo qaawana lagu bahayo adoo madax qaawana kumaan arag videoga meesha ku jiro waa una adoo hadlayo oo qof shukaansanayo oo markaas dadku way isweydaarsadaan wax boqolaal baan markaas shukaansanayno FaceTime-ka ama taangada iska aragnaa waa wax macquul gal weey okay halka markaan gabadha yar ee xural caynte ilaahay sharfay bisha Ramadaan rabeen inay ku qaraabtaan oo dhulka la gooyaan rabeen ilaahay ayaga dhulka la gooyn doono okay halka ka digli bar nikal la yiraahdo qarax quute waxbay isku daba khayla saaka waan yaabana warma gabadhan baan u helinaa qaar waxay rabaan gabadha inay u heliyaan qaarna qarax quutay qabiil ku wataan oo kuleyn waa reer hebel ayaa laga hadlay war gabadhan in the first place dhageysto qarax quutow raggu dumarku way shukaasadaan waa ninka qarax soo gudbin jiray ee videoyadan liigareeyay baan la hadlayaan si toos u hadlay dhageyso raggu gabdhuhu way shukaasadaan sawirray isweedaarsadaan way isdaawadaan ilan kalgacal iyo jacayl baa ka dhaxeeyo ilan way isu baahan yihiin wax interest la dhaho ayaa ma garanaysaa labada qof isu soo jiidayo hadday intaasoo rage oo ilaahay Soomaali 10 milyan iyo 20 milyan uu ka dhigay ragoodii ay gabadha sida u quruxda badan ilaahay xural caynta uu ka dhigay ee ma garanaysaa markii aan saaxiibada iyo ugaaska booska la shaqay reer heliduun ay ka soo jeedo oo nin kala tageen oo gabar ma garanaysaa garoobay tahay ay ku shukaasatay ragga ka calbatay oo ay ka dooratay raggi ay tiri ragoo dhan uf intay tiri adigu qalbigeedii iyo naxariisteedii ay ku furtay oo waliba si kal gacal leh wixii aad codsatay waxaadan codsaninba ay ku soo dhaweysanaysay sababta keeni karta qarax quutow inaad gabadhii sawiradeedii iyo videoyadeedii ay baraha bulshada wareegaan waa maxay ilaan gabadhii lagaba soo qaadin gabadha xaaskaaga ee waa qarax quutaan la hadlay waa ka qarax baa dhacayay deg qarax baa dhacayay deg
ugu dambeyntii fiidiyoyaad soo dhigtay gabar Soomaaliyeed oo walaasha ah oo ehel oo dad kuugu sokayso oo arxan kuugu sokayso qarax quutow yay ka tustay inaad view iyo followal ku raadis gabdhaha xaasaska gabdhahana la dhashay kuma raadina inay laag iyo follow noola saaro afka intaana leeg saddex lugoodna waan ku taagannahay ma garaysa afkaan qaylinaa oo hadalnaa kii like saariya kii aan like saaraynin asay u taalaa bal hadalkayga aad u dhageyso yaa gabadhii ku aamintay ee walaasha ahayd ee ragga intaa leegay Soomaaliyeed dhowrka milyan ka ma garaysaa ka soo juus garaysatay oo ka calmatay oo ku sir qarisay sirta isla wadaagayseen oo habeen iyo maalin wixii Ilaahay idinku talagalay labadiina aad ku wada hadlayseen sideed uma dawlad soo horfariisataa xaaskaygii hore yaa fiidiyoyadan bixisay war dadku ma waalan yihiin dadku miyay waalan yihiin bisaa waalan sanaguna waal rabaa haddaad ninka rag waxa lagu yaqaanaa markuu gabadhu waa gabar qurux badan maasha haddaad gabadhu kala dhaxbaxday rag oo gabadha adoo rag la buranaya ma la shukaansanay hadda kan kale ooyayay iyo waxaan wada dhawaaqay aad kala dhaxbax raganimo gabadha waa la asturaa sharaf baa loo yeelaa waa la karaameeyaa waxa weeye dumarka laga sareysiyaa waa lagu faanaa ceebteedii iyo meel walba ka liigaysaa la qariyaa oo ma garanaysaa ee la dhodhooba ilaa iyo hadii washkaashiga iyo xodxoodka waxa la yiraahdo waa wax jira weey qarax quutaan la hadlaya ka maalin walba ordo ay wariyanahay xageed wariye ku noqotay ileen fudeedkaaga iyo orodkaaga iyo baqbaqdaada goortan anigu arkay ee aan umada tuseedeer bal waxa ay wariye leeyihiin dhageysto goobjoog yaa iskalam ku yiri waxa fangareeya ninkii la oranayay magaciisa sheegay yaa fangareeya kaamirada u dhiiban aniga ba halkan ba soo fadhiya laakiin wax shahaado oo uu wato wariyanimo male activistaan ah ma garaysa qofka dulman ee la rabo in la dulmiyo yaan mar walba u hadlay aniga cidna ima hadash anu duqbulo dhageyso gabadhii sawirada ama u dirtay ama u ka duubay qarax quute kulli kan furay ee ilmeenaya kaawa handicap ka furay gabadha laga dhacay doqonnimada meelahan wareegayo ee caliyada ka daadanayso kaas kartida inuu leeyahay uma maleynayo gabadha kale leeyahay waa la furay oo ma garanaysaa ee waa la furay ma garanaysaa waa la furay leeyahay oo iyada liigaris oo maleynayo sababtoo ah because waaba la furay baday gabadhii intii la furay yaa gabar kale la shukaansanaya dhageysta laana hadda daan xaas furo oo gabar furo kala tagnay kala baxnay baagayga qaatay shukaansi kale iyo noloshaydii privacy bay noqotay bay ku soconaysaa ilaa guur kale ka galay dhageysta guur kale intaan ka galay privacy bay ku soconaysaa qarax quute afkiisu ka qirto wuxuu yiri fiidiyoyada iyo sawirada wareegaya baraha bulshada wareegaya teleefankayga laga xaday bal dhageysta ilma adeerayaal godobta gabadha yar ee Soomaaliyeed gabadhaas godobta laga galayo iyo damage-ka reerkooda iyo familkooda qabiil lagu difaaci karo laakiin ceebta iyo ma garanaysaa ee fadeexada la dabacsagoor ciday dhibaysay qofka dareemi karo waa hooyada aabaha gabadha walaasheed wiilka la dhashay gabadha inta ku hareeraysan gabadha waxa sababta loo yiri gabadhu waa cawro ama guri rageed ha kaaga jirto gunti rageed ama guri rageed ha kaaga jirto ama god ha kaaga jirto hore loo yiri dhageyso aad u dhageyso laakiin qarax quute sidoo u socday oo maalin walba wax dacaayadee ama dawladda dacaayadee ama maalin walba uu lahaa ma garanaysaa qarax ba Soomaaliya ka dhacay degdeg uu lahaa ugu dambeyntii gabar Soomaaliyeed oo walaashiisa oo waliba la heeybe oo la qabiilay oo asaga aamintay oo u maleysay nin rage u maleysay oo isu dhiibtay farfiiri war bal aad u dhageyso cawaan baa tahay jaahil ila qarax baad u maleysay lagu soo caanbaxo ama qarax baad u maleysay in adduunyo iyo rag lagu dhax joogo war qiimaha gabadhu ay leedahay
معها واحد ايزي قرع خوتو واحد ايزي معها وندريمي كرا قرشها سيدو ودعي بان دريميا because نينكا كله horta gabadhu ma sha Allah gabar Ilaahay qeer Allah siiyo waa gabar Soomaaliyeed oo aad u qurux badan intaan gabdha arkayna naag ka qurux badan way yarta xaaskaygu ba ka qurux badan ma sha Allah kus xaaskayga ana doortay cid ka qurux badan male ma sha Allah inta horta gabar qurux badan oo cad oo Ilaahay joog u dhameeyay way istaahashaa naag oo rag isku dila way istaahashaa ilan qarax quutasaan dareemayo ilan maarta sida loo sameeyay qaraxi iyo firki iyo dhigi iyo magaranaysaa xinjirti maalin walba daadanaysay muddo ku daadanaysay yu sawir ku soo galay u taagay war inooga dhigaa waxa weey xataa ma caawiyo dadka dhaawaca ma qaado su dhigi iyo xinjirti iyo qaraxi iyo baabuurka qaraxa uu dhax taagnaa macnaha noloshan kale ee rag xifaaltamayaan ama rag shakaysanayaan iyo gabar wiil sukaasa wax ku cusub mar wax walba wuxuu maleen in xinjirti dhigi iyo gacantii la kala jeedo buu maleen balgiis macnaha qiimaha ay gabadha ninkan u sameeyay oo tiri soo qarax quutay ka juus garaysatay aniga adiga ragga farax badan in daawarayo ee 20 milyan rag Soomaalida iyo inaga dhax dooratay oo aamintay oo tiri I trust him this guy laakiin nin la aamina ma waxa uu ku soo qoray page-kiisa ee ummadda uu ka gadaya ma aha wax la qaadan kar xaaskaygii hore naagti hore ee furay يا صورة سيدش أو كذا بيش مسير بكذا بيكلم ما هينه سيدنا النقشة ده ولا مركان دبقلني إيه فيرني إيه واحد حقوق والسني سيدا بيوضع إني كان كلا أرتقى بدأ بلوج عليه قرح خوطة كل جينا معها كان كلا جوجو كان كلا أوي كاس هاي ودرم بيلتا إلنتو أي كذا هذا ناس إسكو أوي مقرس قبر له والله وقبر ناس وقبله لو هذا بقول هلاد laga bixinayo way dhabta xaqiiqo dhabta labada boqol halaad dhabta laga bixinayo way rag badan oo wariyaashu way isku wadad iska magaraysaay challenge iska noqdo isdaba guro oo isdaba socdo oo kolba midku meel ku taabto ama war soo saaro meel tago kaamera ka daba qaato ku daba tagaan ma sha Allah qarax quute iyo kan kale ee meelaha Malaysia joogo iyo kuwa kale oo rag kale ay gabadhu macnaha doo gabar madax banaan oo rag badan sukaansanayso qarax kuuto way la noqon weysay in gabadhan xuural caynta ee quruxda badan ee Ilaahay magaranaysaa tii kaliya ku jirtay reerka uu ka dhashay Ilaahay ka dhigay inay juus garaysatay oo nin ahaan u aamintay wuu aamini waay si uu isaga dhiciyo oo uu ila qarax uu sawir uu qaadaa oo qarax oo bam iyo xinjiri wax buu soo sawir jiray wuxuu islahaa shawsaan rag u tahay si aad nin rag u tahay oo u tustid oo ragan kale aad u tustid nin rag tahay oo gabadhii ka qaadid balgiis not this is not a joke si aad u tustid nin rag tahay qarax quuta tahay ki qarax soo gudbinaya tahay wariyaha qarax taagan ah tahay magaraysa uu ka wariyaysan tahay rag kale soo u tustid macnaha tus ilaa heblaayadii quruxda badneed ee Ilaahay laan dheeraha ka dhigay إلهي بيش الله نراه كسر جدي إن أتكدح قاعد يتوسر كلام والله فيديو قصص كبح سيد وانا دارنا يا إنه سكر كبح كوس قبلنا كلا إيه الشيء يو وفر لي بدها سمالا سكون مقتل لقولي لقيش هذا الكي هذا لقيش سو رجع كاكلي أوي كلا ووي كان كلا إيه جوجو بلاهن جوجو ووي قبلنا مركو رفري معناها سوء تصينه كبدي وكيف رأي رجع كلام نيروبي جوجي رجع مقدسة جوجي سوء تصوده ورانا مدو وقرح أو قرحة أو حنجرها إيه بلايا صوت ضوبه أو مجرد ساي فرماجية خير إلى هي دمر دقي وتحبدي كدر ترير كنا قاتين ودم لكن شيء كلا الله ده هاي كبدي بصير رجع الله تصو إلا هو واحد جاهل إلا هو واحد مروى البقرة نحتاجه إلا هو واحد مسكح ديش وعاق نقطه زنبو سوله يدمر زو حدادي ودن با زودي استاجسو ما با غرا كرا ما غرسا قابك رغو فكره ما فهم كر waxay aadinu gabadha u tusaka kala ooy si fiican buusi ooyila inuu gabadha ba garaysa reerkoodii ka doonto gabaati u geeyo meerkeedii u geeyo hooyadeedii aabeed ka farxiyo aroos weyn u dhigo guri u hagaajiyo kaamirooyin u yeero oo loo hambalyeeyo oo niraahno war qarax quute waxa weeyaan mabruuq uu guursadina dhahno
معناها الرج أوين توكسي در لاين حناق بيودي ملهاين أوهم بيودي ملهاين محنا نرجع لان دير دلي أو صدق لغات كتاعنا وجبر جرسدي بنقولها وقرأ خط بلا جالس والله بنقولها لكن هو الكاس إلا هو واحد جاهل أقانتو معناها A B C D إن أتبرتد ومسكح هذا كعينيسا أو مجرد هاي ضد كاي الدنيا ذا بيكون قطريسا بلقيست هذا الجي هذا لقيست سوتو سرقة يرجع وجبرنا ولش كسنة وكلا نحبه يكجوز جريستي وفيرين واي معناها ساق وحلقوا مناطي وأكل جيس مسكح جيسو أي سيسي أو يسيري معناها جبرني أو فيديو أيضا أي قدرتي أي تليفون كيسا قدرتي أو يتوسس محبضة شعيلك كالجعلك ولا التنمذا إلى يوسف دواتو ركجوز جريستي أي توسس معناها جبرنا ما توسس أنا وإيه ما توسس دad kan faraha badan iyo kii hore iyo kuwii dambi waxa ma tusayso waxay tusaysaa jaahilkan waa wax qarax quuto weeyaan ma saafam karo ya tusayso uu dareemi way wixii wuxuu u maleeyay wax uu rag ugu faari karo waxa laga yaabaa birta xaaskiisa noqoto kulli Allahu a'lam kulli wax gabadhaas ugu talgalay uu ku sameeyay maanta yusur ragaa kala u tuso uu yiraahdo gabadhii baan idinka qaaday oo gabadhii baan magaraysaa ana la wareegay يو مقرصايز فيديوهدي ولي غري ودad u diray seegacantiisa ka diray afkiisu ka qirtay si loo soo galiyo social media oo dib loogu soo celiyo social media saga kama u safikirin damage-ka gabadha calmatay ama jeclaatay ee asagu magaraysaa juus garaysatay kama u safikirin damage-ka iyo dhaawaca iyo dhibka gabadha soo gaari kara kama u safikirin just qarax quute وعلي مؤمن وي وريها علي مؤمن اللي يرهذا وي نيك جبنا الفيديو وقدرتي اللي جريء ومدة لسه هرستاج حاس كي هرام مسيرتي بس زيد يسكولا دقيست بالقرح خوتو يا رو رجع أتصو وحنية أصلا أغلي سير كومبلا كهلا يعني قاعد دقيست كومبلا سو رجع أتصو ويرهذا gabadhii kaliya reerka ku jirtay ugu quruxda badneed ee xural caynta ahayd ee magaraysa ilaahay sharaftii iyo jooga u dhameeyay anoo qarax quuta qaatay ila waa nin isyasayo oo magaraysa niyada ninka markuu xasameeyo waa nin isku kalsooneen waa qof isku kalsooneen way suu raga u tuso u dhaho gabadhii ana qaatay ana dhinaciga jirta wata waliba ayada oo magaraysa aad ii jecel yaadasha iyo dad kale u diray videogi wuxuu yiri soo galiyo facebooka مقرر ساديات كما أوصف فكرين رجع سياس دامج وجارسيري سار أو مسيريان أو أتقاعد قبلي أو حناقيان لكن أسرع كما أوصف فكرمون رجع حناق هذا يا قبلنا حناق يدبك سو جاري دونه نتكاتلو إنه ميسامه ويرهذو بل هذا قبل دام سو جاري why do I want to challenge with this man already قبلي أنا هستبر إلا ما واحد يران صوب مرنو إسمارية قرح ولا يجيب التاجنا موت إنه ميسامه هذا ده أوكي هذا بقبل يدي كعبة بيشو أو جعل كاميرا شيب كنا قد حي ودامج كسو قاري أنا أقول لا تشالنج قرينا يا كذي إكس كذي هوري أما نمان كهوري تام رجع كده قاضي مقرر سال لا تشالنج قرينا معناها قبل يدي دامج كذا كبدن so I don't have to do that ورينا بس قاعد يسنو سيات هذا ورين تورا كسعودين لكن لو واحد قرح تاجن إلا ووح قرح تاجن هذي مالن يعصر تاجن قرح ده تاجن بكتا يديجا يحنجر قبلنا على قروح بدن بديج معناها وحقوق مالنا يا هنا ميدتك ومانويل بكر تاجن هاي وصوص صورة ومانويل بالله هاي مقرر سا قرح بعد قرح بعد يا قبلنا عدد هذه وحنا مرستي قروح ذن يوارك لا كان قبلنا تصوص حقوق مالنا وحي ميدتك بناك جيفي قرح ودريب ومالنا كم وصف كريب قبلنا أنا قبلنا وقروح بدنا تاو ضدني مقرر سا قومي لنا كحسب طبيعي نيدي سمقل أدر عبودي شرفتي كان عضي قبلنا يرهر كودنا حالي حمين بيكاربان وحبايا نكا كلا اللي قدقين قف كله فيسبوك كا عضلنا يا اللي قدقين يانا قبر كلي يعيد كلا تر القبسان نكا داوع عقارسية قبلنا هدوب الداوع كل يعني فيديو هورانتي شكال فيديو واحد عيبة معايا وقبلنا عليهم كو أركها بيراتي أنا جمجرد قبل صوماليات أسطوران أو نين إيشو كان سنة فيديو ودوبتي
oo tiri walaal waa ku jeclahay waan ku baahanahay kaliya un baan arkay I don't see any more details ceeb waa naqaaban iyo waxyaasa ceeb ahaan magaraysa aadiyad just waxa kaliya asaga ka rabay uu gabadhan magaraysa rag kale ugu dilay because gabadha waxay tiri cali qarax quute magaraysa caliyow xaajiyow caliyow wax noocaas tiri caliga kaliya you just a video magaraysa u liigray okay mas'uuliyadda waxba yaana dad kale iyo cid kale iyo qof kale lagu dhigay haddii gabadha ku ceeb ma laha videogana wax ceeb kuma arkin haddii qof la qabsanayo haddii qof ma garanaysa la xisaabtamay ninka wariyaha sheegtay ee afkiisa ka qirtay waa qarax quuto way ee yiri telefoonkayga waliba jeeska iyo ku leenta hadalka iyo ma garanaysa qaabka hadalka xanuunka mad iyo ku xanuujinta waliba gabadha Soomaaliyeed ku sii xanuujinayo ee uu ku sii turqaya kaaga dar ma garanaysa ee uu leeyahay ma garanaysa sawirada iyo videoyada baraha bulshada wareegayo waxa laga qaaday telefoonkayga waxaana laga xaday telefoonkayga oo laga xaday ayaa laga bixiyay hawshana hawl maseer bay u dhacday waaba isla qumayahay qarax quuto ma garanaysa waaba isla qumayahay ninna waa kaga oysiyay naagtiisa horetana wuxuu tusay aniga saas u faham ilaa maskaxda ilaahay dhakada yarta ilaahay wuxuu ku saaray inaad ka shaqaysiisid anigu qarax quuto qaabku ilaa waa wax jaahile aqli lahayn maskax ku filan aan lahayn maskaxdiisu ukunto ay la mid tahay saade u jabto iska jabayso qarax taagan inkaarti umadu ay ku dhacday oo saan calada ugu soo dagayso way balagayst just wuxuu iska dhaadhicay inuu hebelkii kale xagga joogana kaga oysiyay waa kaga oysiyay gabadhii kale ee xaaskiisa oratay heedna uu ma garanaysaa ayaduna ay ma garanaysaa naaka qurux badan ay caliyow ku hesho uu tuso qarax quutay inuu qatar yahay oo gabadhii reerka ugu qurux badneed ay jacayshayna inuu tuso kaliya laakiin gabadhan kale ilaahay ma garanaysaa ilaahay ha asturo ninkan jeclaatay jacayl bay u qaaday waxay secret buu ahaa waa run gabdha la shukaasada wiilal baa gabdha shukaasado waxooda waa secret guur bay ka wada hadlaan ilmay ka wada hadlaan intaas isla qoslayaan cashay isla aadaan way soo ceeb qariyaan cid ogaato mare maalinta guurkooda baan ogaanaa hebel iyo hebel oo maanta la sumeernaya ma sha Allah hoostaas ka wada socday inta hoosta ka socday xataa aaboodii hooda moogan iska daa qof kale iyo shakhsi kale iska